صدرتان سدا ugu tala gasheen iyo meesha ugu tala gasheen insha Allah ta'ala in ay gaadho ay ku baxdo waxaan u yar noqonayaa ku laabanaya waxa suuragal in dad badan oo dhageysanaya ama cod ka maqlaya ay yiraahdaan de adduunku maba badnayn $2,560 sidaa uma badnayn maxaa laga bumbuuninaya waxa laga bumbuuninaya waxa weeye waxa loo socdaa waxa weeye ma aha adduunka laakiin macnaha ay xambaarsan yihiin ayaa loo socdaa waxa suuragal magaalada Berbera ee aanu ku noolahay ama isbitaalkan ay joogo in laga heli karo 10 ama 100 ba lacagta qadarkan leeyahay aanay waxba la ahayn si fudud oo bixin kara laakiin waxaan meesha oolin dareenkii ka warhayntii iyo damqashadii baan midda inta badan inkastoo jiraan dad imika ba caawiyo isbitaalka haddana sida isbitaalku baahidiisu tahay waxa meesha ka cad in aan dadku xogagal badan oo hayn ama aan ogaal oo hayn ama aan sidii la rabay aan meesha u imanino aan uga haynin oran ma iska reebi maayo anigaygan laga yaabay imkaan in arrinta la soo mariyay waqti hore ayay ugu dambeysay isbitaalkan imaado inta badan runtii ama xaalka adduunka iska haato ama deen casniba kala ahaatee may noo suuroobay inaan imaadno laakiin way jiraan magaalada gudaheeda iyo meelo badan oo kale oo wadanka ka mid ah in ay jiraan dad adduun heli karaya oo laakiin aan soo gaadhin marka lacagtani qadarkii doonto ha ahaatee nimanka kumanaanka 1000 kilomitir jooga haday dareemeen oo yiraahdaan wallahi dad baa naga dambeeya oo waliba dad jilicsan baa naga dambeeya oo dad aan cid u qaylinayna u hadleen baa naga dambeeysa waxaan leeyahay waxay xabaarsan tahay macna aad u ballaaran waxa suuragal ah in halkan hadii laga dhaqaaqo isbitaalka la dhaafo kilomitir square adigoon marin in laga yaabo 10 qof oo xanuunsanaya inaad kula kulanto waxaana jirta in siday u badan tahay dadka isbitaalada ama Hargeysa ama Berbera ama Burco meelaha kala haateen la geeyaa inta badan waa in dad markaa cusub ama dadkoodu ay daba ordayaan Soomaalida hore ugu mahmaado tiri bukaan badan iyo bariya badan labadaba la isku naca qofka hadduu jiitamo ama uu muddo buko ama se hadduu doono qofkiiba uu ka soo loo meel dheer ka yimaado waxa laga yaabaa inaan ciibo ka daba tegin qaban kara loo qabto taas waa baahida degdega waxa kale oo jirta baahi taagan oo war dhibtan wixii sababayay sidee loo daweyn kari lahaa dhibtan taagan ee dadkan ula bukoonayo la xanuunsanayo sidee loo daweeyaa taas waa arrin u baahan arrin iyo adduun labadaba waana arrin aan filayno haddii ay ka dhigo anigu aan kaga tagayo in dadka gudaha ku jira iyo kuwa dibadda jooga xukuumadda iyo cid kasta oo jirtaaba arrinka inay ka tashato oo laga hadlo bal halkan eriyadiisa ka oran doona بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم hortani wax ku siiyay de wad maasanta la waxaan gudoominayaa hantida horta aad iyo aad baad ugu maasantahay adiga soo wareejiyay cid soo urursayba waxaan leeyahay hay'ad ka abaal mariyo kulay nima wax gudooman hadal ma banaanay gudoonka ay horeynaya waxaan kaliya ku soo ururinayaa anigu dhowr qodob qaybta mahad celinta iyo hawshayada gaar ahaaneed waxaan u dhaafayaa maamulaha isbitaalka runtii halkan waxaanu ku qaabilsanahay laba xubnood oo gaar oo kamid ah 7 xubnood ee guddiga caafimaadka gobolka aniga iyo Shucayb Xasan Maxamuud runtii waxaan doonayaa warbixin kooban idinka siiyo inta halkan fadhida inta badan way maqashay laakiin inaan kuwa dibadda igala xiriiraya inaan runtii gaarsiiyo waxana aan idin sheegayaa runtii inaan ahay wixii koowaad ay ku kalifayaan TV-ga ka soo baxaa wuxuu noqday isbitaalkan aan hadda joogo oo bixin isbitaalka nasashada marka TV-yada ma jeclayn in runtii laga arko oo waayo waa waxyaabo badan bay isaga badan yihiin laakiin runtii waxay igu qasabtay inaan had iyo jeer khudbada ka jeediyo waa baahida dadka halkan joogta ayaa sababtay asaaska isbitaalkan wuxuu ahaa Turkiga baa bilaabay 1918 qaybta labaadna Ingiriiska ku kordhiyay 1945 waxaan u maleynayaa dawladda Soomaaliya qaybay ku kordhisay oo qaybta ragga dhinacaasa qaybo dambe waxa ku daray haddana Somaliland rehabilitation iyo cusboonaysiina in badan gacanta lagu hayo haddana gacanta lagu meel xeeb u baabaya haddaan kaga baxo qaybtiisa wuxuu kala qaybsan laba qaybood qaybtan fadhino oo dumarku leeyahay iyo qayb ragga oo dhinaca bidixda inaga xiga dadka ku jira tiradoodu waa 460 qof inta hadda nasashada ku jirta waxaan fariintan idinku soo gudbinayaa inaan ka bedelay magaca isbitaalkii maskaxda waxaan u bedelay isbitaalka nasashada Berbera
waayo kelmadda maskaxda lafteeda ayaana danqaysa marka aanu maqallo ama dadka caafimaad ugu jira danqaysa sidaa awoodeed idinkoo nala garan doona waa cusbitaalkii nasashada waxaa ku jira 460 qof oo nasasho ugu jira 7 ka mid ah waa dumar 7 iyo 50 waa rag weey farqiga u dhaxeeya waa garan kartaan rag iyo dumarka waliba dadka da'doodu waxay u badan yihiin 20 jir ilaa 30 jir 20 jir ilaa 30 jir ay u badan yihiin dhibaatooyinka xanuunkan haddaan in yar ka taabto waxa ugu badan oo 80% waa qaadka ayaa ugu badan waana garan kartaan sida raggu 750 u yahay dumarkuna ay 7 yihiin waxa weeyaan waa jaadka ka iminka aan xanuunsano waxa weeyaan waa xanuun aad iibsanayso maalin walba dhalinyaradaasi markay 7 casho ama 3 casho u qoran nastaan caadi loo soo noqonayaan ee jaadka laga joojiyo xanuunada kale waxyaabaha keena waxa kamid ah ee balwadaha qaybo kamid ah sida xashiishada iyo diyaasabumka iyo waxyaabaha la midka ah oo iyaguna qaybta labaad soo raacaya jaadka balwada la qaba oo aan anagu tirino mukhadaraadka aanu ku wada tirino qaybta labaad ee soo raacda ee lala waasho waxa kamid ah waxyaabaha infiltrationka oo kale shaqalaanta dhibaatooyinka ka dhacay wadanka waxa kamid ah kii maskaxda Ilaahay subhanahu wa ta'ala markaba ugu talagalo laga yaabo inuu xanuun maskaxeed ku dhacay oo iyagu la oran karo 3% ama 5% bay noqonayaan haddaan intaa ka gudbo runaantii waxaan halku dhig ka maqlayay Xuseen ay nimankan lacagta ku soo ururiyeen oo yiraahdeen in xanuunsanaya cid maaha arinta waxaan uga marxaad ka cusbitaalkan hadda waxa ku jira oo ku haynaa Ethiopian waxaan ku haynaa kuwa Jigjiga iyo Addis Ababa ka yimid oo Soomaaliya waxaan ku haynaa kuwa Xamar ka yimid waxaan ku haynaa kuwa Baydhabo ka yimid oo aan cid balahayn oo gudida caafimaadka ku qoray damiinkood oo annagana lagu qoro maalinta ay ladnaadaan anagu ay noolinay reerkoodii sheegtaan ama ay telefoonadii kartaan taasi waxay cadeynaysaa inaanay cid lahayn ama ha noqdo Ethiopian ama ha noqdo Soomaali ama cid kale ha noqdo Arab halka ku bogsatay kuwa Arbeed oo lugeynayaan helay oo aanu qabanay oo iyagana aan ismarkay bogsadeen wadankooda u diray taasi waxa weeyaan cidna ma aha cidda uu sugayaana waa cid walo islaama iyo cid walo naxaysa oo garanaysa gaar iyo muslimba uu baahay waxaan runaantii ku soo koobayaa baahiyaha maalinta ka gudbo warbixinta cusbitaalka waxaan ku soo koobayaa baahiyaha horta baahi Ilaahay uma dhameystirka bini aadam baahi loo sheegtaa waxa ma dhameystirka runtii waynu dadaalaynaa laakiin baahi lama dhameystirka waxaan ku soo ururinayaa 2 kelmadood ama 2 baahiyood oo mid tahay dhismaha cusbitaalka oo intu doono qaybta aan ugu talagalay oo baahidooda aanu ugu talagalay in aanu ku dhisno naqshadii cusbitaalka aan ugu talagalay wardka qaybta ragga aan ugu talagalay inay ward dadka xiran lagaga soo saaro oo la dhigo oo aanu silsilada wixii la oran jiray sideedaba aanu ka gudubno oo ay noqdaan dad halkaan noo jiifo oo nasanayo dawada qaadanayo waxaan ogaanay in silsilada lafteedu ka qayb qaadanayso cuqdada qofka gelisa sida awoodeed aanu silsilada sanadkan 2010 ka aanu ugu talagalay wax silsilad la yiraahdo inaanu hore uga gudubno oo ay noqdaan dad nasanaya oo meesha jooga qofkii markaa dhibaato geystana aanu si kale ula macaamilno ama aanu la saaxiibno ama aanu si kale shaqaale ugu tababarno shayga labaad baahida aanu u baahnay waxa weeyaan shaqaalaha iyaga in tababar dheeraad ah aanu siino oo dadka aanu soo deyn doono dadkii la macaamili lahaa inaanu gaarsiino halka runtii way tababaran yihiin shaqaale fiican baa noo jooga haba yaraadaan 19 qof baa ka shaqeeya macaamilada cusbitaalka mental cusbitaalka ka shaqeeya ama cusbitaalka nasashada nooga shaqeeya nadiifisooyinkii waashmaana iyo kuuga marka laga reebo way yar yihiin dadka shaqaale caafimaad u tababaranay sida awgeed baan rabnaa inaan shaqaale caafimaadka tababarkooda hore u qaadno tiradoodana aanu kordhino marka dhaqaalihi hadda sabarada halkan suran shalay iyo daraad waxa socday seminar u soconayay shaqaalahan oo aan aqoontooda sare ugu qaadinay dhaqaale u baahan yihiin macallimiinta tababaraysa dhaqaale u baahan tahay shaqaalaha laftooda wuxuu u baahan yahay in marka la guneeyo waqtiga uu tababarku u soconayo barnaamijkaas iyo gunada shaqaaluhu 19 ka shaqaalaha in yarba dawladda ka diiwaan gashan waxa weeyaan 7 qof baa ka diiwaan gashan 7 qof qaarkood waxay qaataan wax aanan runtii TV inaan ka sheego aan runtii kala khajirayo waayo $10 iyo $15 reerno kuma noolaan karo waxa laga yaabaa gunaanu meelaha uga soo qaadnaa annagu taanu ugu daraana wax naf lama dhaanto sababtu tahay baahidii aan waxaanu soo ururinay baa waxay noqdeen iyo shaqaale baan naga kala batay sida waxaan u baahanay shaqaale tiradoodu hadii doonto haba koobnaato waxaanu rajadayadu tahay aanu doonaynaa shaqaale quality leh wax naf lana qaata waan la xisaabtami karaan helo sanadkan 2010 ka arintaas aan ugu talagalay
cidda naga caawinaysa markaa waa baahi shaqaalaha